agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga ayaa sheegay inay dhawaan bilaabi doonaan deymo la siin doono dhalinyarada la timaada hal-abuurka ganacsi. Agaasime Axmed Abakar oo ka hadlay kulan ay heshiis ku kala saxeexanayeen wasaaradda iyo shirkad maalgashi oo magaceeda la yiraahdo Nordic Fund ayaa ku dhawaaqay in ay ka xukuumad ahaan dhawaan bilaabi doonaan hirgelinta mashruuc lagu kobcinayo hal-abuurka dhalinyarada isla markaana shaqo loogu sameyn doono. Insha Allah sanadkan soo socda miisaaniyadda waxaan ku dari doonaa deyn lagu bilaabo markaa وليبنا آد لوف ذي شروط هذا والدولة بحين دوت مركي ورئيسي وقنا عساسا لليرادة يا هوين كوا بدن فكرة هذا الأمور كلي ما دمر كدين لسندهم مركاتها كل الشراكة يعدي هري ودينا وسيوا ذي سا دولتنا سنة كذا بين بقرشين وجرتها قرشها قرن كيف دشان تصنع قيد كتح فحنا مركا كيلو لنا كدرنا أوشان شراكة مكانوا ذا قبلنا ما نوردك فن وبتشين تفنكم وإن لا لي عمل الصلاة قرشها شنطة سنة قرن كجمهورية الصومال. مختار عبد الدروس عجاء تيفي قرن كشمال هرجيسة.